Xilligan casriga ah ee dunida, dadku waxay jecel yihiin degdega iyo boobsiiska. Laga soo bilaabo iscaadaynta ilaa xawaaraha internetka iyo sida degdega ah ee aad ugu jawaabayso fariimaha iyo iimaylada laguu soo diro. Dhammaan waa arrimo la xiriira sida aadanaha ay u jecel yihiin degdega ayay muujinaysaa. Taasna waxay gaarsiisantaa xitaa heerka shaqada iyo guusha nolosha. Dadku waxay jecel yihiin in si degdeg ah ay meel sare kaga gaaraan xirfadooda. Ma jirto hal sir oo sababi karta in hal habeen aad ku taajirto in Alle kuu qadaray mooyee, balse isku day tabahan si guushaada ay u noqoto mid degdeg ah. Kow, la imow yool wax ku ool ah. Si guushaada ay u noqoto mid sii degdegta, waxaad u baahan tahay inaad sii samaysto yoolka aad tiigsanayso ee xirfadaada. Waxaa suuragal ah in meelo fudud aad ka heli karto haddii aad isku daydo inaad dejisto yool la taaban karo. Sababtoo ah micnaynta guusha dadku way ku kala aragti duwan yihiin. Waa muhiim inaad si cad u qeexdo yoolka sida shakhsiga ah aad u tiigsanayso. Maxay tahay guusha xirfadeed ee aad doonayso? Maxaan u baahanahay inaan sameeyo si aan guushaas u gaaro? Yaa iga caawin kara? Iyo su'aalaha sida gaarka ah kuu taabanaya. Haddaba isweydii kadibna raadi xalkooda. Yool muddo dheer ah wuxuu kaa caawinayaa inaad samaysato xilliga aad guusha gaari karto iyo sida ay wax kasta kugu kala qaybsan yihiin. Ujeedooyinka cad waxay kaa caawinayaan inaad la timaado tallaabooyin la taaban karo oo aan waqti dhumis kugu ahayn, iyo inaad ka fogaato wax aan guushaas ku gaarsiin karin. Dejinta yoolka waxay sidoo kale kaa caawinaysaa inaad mar kasta dhiiranaato oo aadan niyad jabin, howlkarna aad noqoto. Waana arrimaha sababa guusha. 2. Deji wadiiqo dhab ah, hana ka leexan. Dadka guulaha waaweyn gaaray way garanayaan arrintan. Waa faa'iido weyn in hal wadiiqo aad dejiso kadibna aad ku celceliso maalin kasta. Ku celcelinta waxay kaa caawinaysaa inaad horay u sii socoto, aadna sare u kacdo. Arrinta ugu muhiimsan waxay tahay in ku celcelinta ay kaa caawinayso inaad si fudud ku qiimeyso guusha aad gaartay iyo sida uu yahay horumarkaaga. Sidoo kale waa tallaabo kuu fududaynaysa in dhaqankaaga iyo dabcigaaga ay isbeddelaan si guushaada ay u noqoto mid degdeg ah. Ku celcelinta waa sida waqtiga gaarka ah ee aad seexanayso ama aad soo toosayso iyo xilliga aad shaqo kasta qabanayso waa inay ku caymnaadaan, aadna ku celceliso maalin kasta. 3. Toosi ama hagaaji waxyaabaha aad ku celcelinayso. Ka waran haddii aan kuu sheego inaad noloshaada wax fudud ka dhigi karto, iskana leexin karto jidgooyooyinka iyo caqabadaha kaa hor istaagaya inaad guulaysato. Arrimaha wanaagsan inaad ku celceliso waxay gacan weyn ka geysanayaan inaad guul wanaagsan oo muuqata aad gaarto. Balse dhaqamada iyo dabeecadaha xun iyo waqti luminta oo aad haddana maalin kasta samayso waxay kuu geysan karaan khasaare weyn oo dhanka nolosha ah. Haddaba sidee u hagaajin kartaa wax wanaagsan ee aad maalin kasta samayso? Marka hore eeg oo qiimee wax kasta oo waqti badan kaa qaata haddana aadan waxba ka faa'iidin. Ma ogtahay in arrimahan sida baraha bulshada oo aad maanta oo dhan ku dhex jirto iyo inaad fadhi ku dir aado ama aad iska soo wareegto inaysan waxba kugu soo kordhinaynin noloshaada? Haddaba marka aad ogaato arrimaha waqtigaaga luminaya waa inaad si degdeg ah uga howlgashaa sidii aad ku baabi'in lahayd ama aad ku yarayn lahayd. Waxay u baahan tahay aadaab iyo dishibliin sidii aad isaga joojin lahayd waxyaabaha caqabadaha iyo dhibka kugu ah. Haddii aad taa ku guulaysto, shaqada way kuu fududaanaysaa, waadna gaari kartaa guusha aad u baahan tahay. 4. Raadi la taliye ku caawiya oo aqoon leh. Inta badan dadka guulaha waaweyn ka gaaray nolosha arrintan way ka siman yihiin. Waxay leeyihiin la taliye aqoon leh. Waa qof ay isku xirfad yihiin, guulo muuqdana ka gaaray xirfadaas, muddana ku soo dhex jiray. Khibradooda marka la eego, waxaad ka heli kartaa macluumaad iyo xogo muhiim ah iyo tusaalooyin wanaagsan. Sidoo kale wuxuu qofka noocaas ah kaa caawinayaa inaad ka fogaato waxyaabaha sababi kara guuldaro iyo niyad jab soo wajaha xirfadaada iyo waxa aad higsanayso. Waxayna ku barayaan sida degdega ah ee loo xaliyo dhibaatooyinka imaan kara. 5. Baro sida loo dhaho maya. Mid ka mid ah ragga tujaarta ee caalamka wuxuu yidhi, kuma siin karo hab rasmi ah oo guul lagu gaaro, balse waxaan kuu sheegi karaa sababta guuldarrada. Waa inaad isku daydo inaad mar kasta ka farxiso qof walba. Inaad tiraahdo haye, waan ogolaaday wax kasta waa arrin iska fudud, kana farxinayso qofka kale. Balse haddii ay badato hayadaada iyo ogolaanshahaaga, waxay ku gaarsiin kartaa xaalad xun oo cakiran. Haddii aad wax kasta ogolaato oo aad tahay qof hayadiisu badan tahay, waxaad gaari kartaa heer aad qabato shaqo kaatan badan oo aad kuugu culus, taas oo soo dedejinaysa inaad guuldaraysato. Waan ogahay inay adag tahay in maya la dhaho, balse waa arrin mar kasta u fiican caafimaadkaaga iyo guushaada. Wixii aadan awoodin waa inaad diiddaa, ama haddii aad shaqo kale hayso ha ku darsan mid kale, hana aqbalin. Sidoo kale waqti ha ku lumin waxyaabo aan faa'iido u ahayn horumarkaaga. 6. Noqo qof lacagta dhaqaalaysta oo si caqli ah u adeegsada. Way adag tahay inaad guul gaarto haddii aad isticmaalayso lacag kasta oo ku soo gasha, oo mararka qaar aad ku iibsanayso ama ku bixinayso wax aan dan iyo faa'iido kuu ahayn. Haddii aad doonayso guul degdeg ah waa inaad noqotaa qof lacagta keedsada oo meel dhigta.
marka aad tahay qof ku wanaagsan isticmaalka lacagta waxaad noqonaysaa qof sare u sii kaca oo dhaqaalena meel ku og. haddii uu soo baxo mashruuc maalgashi ama ganacsi la bilaabayo waxaad noqonaysaa qofka ugu horeeya. waa haddii ay lacag meel kuu taalo, markaa waxaad diyaar u noqonaysaa wax kastoo degdeg ah oo soo baxa. toddobo, wax ka baro khaladaadka aad samaysay. guusha waxaa dhadhan iyo cusbo u yeelo waa guuldarradaada. mar kastoo aad ka baxdo samaynta waxyaabaha aad ku faraxsan tahay keliya aadna wajahdo caqabadaha, waxay u badan tahay in khaladaad badan aad samayso. haddii aad doonayso guul heer sare ah, haddaba simbirraxooyinkaas yaryar yaysan ku niyad jabin, dibna yaysan kuu celin. ha u arkin inay guuldarradu tahay dhammaadka dunida, balse u arag bilowga fursadaha ku hor yaala. fashilka iyo guuldarrada waa macallimkeena ugu sarreeya. wax aad maanta u aragto qalad kaa dhacay ayaa cashir weyn u noqon kara guusha mustaqbalkaaga. diiradda saar horumarka, ha eegin in wax kasta ay kaamil noqdaan. haddii aad tahay qof wax ka barta guuldarrada, waxaad noqonaysaa qof adkaysi leh oo guushana si fiican u dhadhamiya. intaas ayaynu talooyinkeena ku soo ekaynaynaa. haddii aad talooyinkan midkood wax ka faa'iido, fadlan like saar muuqaalka. haddii ay tahay markii kugu horreysay ee janaalkeena soo booqato, fadlan taaba calaamadda subscribe-ka oo nagu soo biir. mahadsanid.